السلام عليكم walaalayaal kasoo dhawaada barnaamijka sahanka saxan. magacaygu waa Canab, waxaan ka mid ahay qabanqaabiyayaasha barnaamijkan oo ay ka buuxaan sheekooyin inagu hagaya safarka nolosha oo ina baraya casharo ku saabsan wax ka barashada nolosha. waxaan mahadcelin gaara u dirayaa walaashay Quman iyo walaalkay Axmed oo qaybtan u maalgeliyay wiilashooda. qaybta maanta waxaan ku baran doonaa Cumar, Cimraan iyo Akram iyo awoodda midnimada oo ah sheeko ina xasuusinaysa muhiimadda ay leedahay in la midoobo oo si wada jira loo wada shaqeeyo. haddaba aan bilowno safarkeena. tuulo degan oo u dhaxaysa buuro yaryar oo qurxoon waxaa ku nooraan jiray 3 walaalo ah oo la oran jiray Cumar, Cimraan iyo Akram. walaalahan waxaa laga yaqaanay tuulada oo dhan xiriirkooda wada jirka ah iyo dareenka xooggan ee midnimadooda. waxay si wada jira uga shaqayn jireen beerta qoyskooda iyagoo iscaawinaya shaqo kasta oo ay qabanayaan, ha noqoto mid abuuritaanka abuurka, goosashada dalagga ama daryeelka xoolaha. aabbahood inkastuu hadda duqoobay oo ciraystay, mar walba wuxuu baray muhiimadda ay leedahay in la midoobo, wuxuuna in badan xasuusin jiray aayad ka mid ah qur-aanka kariimka ah: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. aayaddaasoo alla subxaana wa tacaala uu dhahay qabsada xadhiga alle idilkiinba hana kala teginina. suuratu cumraan aayadda 103. aabbahood xitaa isagoo duqoobay wuxuu la fariisan jiray mar kasta, isaga oo la wadaagi jiray xigmado iyo dhiirigelin ku saabsan inuu midba midka kale taageero u noqdo. sababta midnimadooda darteed beertooda waxay noqotay mid barwaaqo ah, waxayna awood u yeesheen inay taageeraan naftooda, aabbahood iyo hooyadood. dadka tuuladu waxay ku ammaani jireen mar walba, waxayna ka sheekayn jireen sida xoogga iyo barwaaqada ay ugu heleen walaalahani sababta wada jirnimada iyo wada shaqaynta. maalin maalmaha ka mid ah ayaa daris xaasid ah oo ka masayrsan guusha walaalahan ayaa wuxuu go'aansaday inuu khilaaf dhexdooda ku abuuro. wuxuu u yimi Cumar wuxuuna ku yidhi: Cumar, ma waxaad u daynaysaa Cimraan iyo Akram inay maamulaan go'aanada muhiimka ah ee beerta? adiga ayaa ka weyn, waana inaad hoggaanka u qabato, iyaguna waa inay ku raacaan. Cumar oo dareemay in la ammaanay wuxuu bilaabay inuu ku fakero in laga yaabo inuu awood dheeraada u yeesho maamulidda beerta. dariska ayaa markaasna u tegay Cimraan wuxuuna ku yidhi: Cimraan, adigu waxaad tahay ka ugu shaqada badan xagga beerta. waxaad abuurtaa abuurka, waxaad waraabisaa dalagyada, waxaadna daryeeshaa xoolaha in ka badan walaalada. miyaynan ahayn inaad adigu go'aan ka gaarto halkii aad raaci lahayd Cumar iyo Akram? Cimraan isna wuxuu bilaabay inuu dareemo in la qiimeeyey uu u maleeyey inay tahay wakhtigii uu isagu gaari lahaa go'aamo gaara. ugu dambeyntii dariskii wuxuu u yimi Akram wuxuuna kula faqay: Akram, adigu waxaad tahay midka ugu xirfadda badan xagga iibinta dalagyada suuqa, waxaad keentaa lacagta ugu badan, haddana walaalaha ayaa go'aamiyey sida loo isticmaalo. miyaynan ahayn inaad adigu tahay midka maamula maaliyadda beerta? Akram sida walaalihiis wuxuu bilaabay inuu dareemo inuu xaq u leeyahay awood dheeraada. markii masayrkii iyo kibirkii uu galay qalbiyadooda, walaalihii waxay bilaabeen inay iskhilaafaan, inaysan israacsanayn, waxayna bilaabeen inay kala shaqeeyaan oo midba uu diiradda saaro shaqadiisa isagoo diidaya inuu caawiyo ka kale. beertii mar barwaaqada ahayd waxay noqotay mid burbursan, iyagii oo aan midnimo lahayn, dalagyadii oo la dayacay, xoolihii oo si saxa loo daryeelin, iyo dakhligii oo hoos u dhacay. maalin maalmaha ka mida isagoo kaligii fadhiya beerta dayacan, Cumar wuxuu xasuustay casharadii aabbahood iyo aayaddii qur-aanka. wuxuu fahmay sida midnimadoodii ay u daciiftay iyo siday ugu waxyeeloobeen noloshooda. isaga oo qalbiga culays ka dareemaya wuxuu u tegay Cimraan iyo Akram wuxuuna ku yidhi: walaalayaal, waxaan ogolaanay inay nafteenna iyo isla weynideennu ina kala qaybiso, waxaana ilownay muhiimaddii ay lahayd midnimadii iyo casharadii aabbaheen. Cimraan iyo Akram iyaguna waxay dareemayeen culays kala qaybsanaanta xaggeeda ka yimi, waxayna ku raaceen Cumar. waxay xasuusteen erayadii aabbahood iyo aayaddii qur-aanka. indhahooda waxaa soo buuxisay ilmo markii ay garteen sida ay uga leexdeen casharadii aabbahood, waxayna ku ballameen inaysan mar dambe ogolaan doonin in dhexdooda ay cidi soo gasho. si wada jira waxay ku soo laabteen beertoodii, ayaga oo si wada jira uga shaqaynaya sidii ay hore u samayn jireen. si tartiib tartiibah beertii waxay mar kale noqotay mid barwaaqo ah, dalagyadii way koreen, xoolihiina way barwaaqaysteen, waxayna walaaluhu dib u heleen guushii iyo farxaddii. dadkii tuuladu markay arkeen walaalihii oo dib u midoobay, waxay ku ammaaneen xooggoodii iyo midnimadoodii soo noqotay.
cumar cimraan iyo akram waxay ogaadeen guushu inaysan ku jirin shaqada adag oo kaliya balse ay ku jirto awoodda iyo midnimada sidii uu alle faray. sidaa darteed sahankeena qaaliga ah ee safarkeena maanta wuxuu diiradda saarayaa muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah loo wada shaqeeyo. waxaan rajaynayaa inaad ka heshaan sheekada cumar cimraan iyo akram iyo awoodda midnimada oo inagu dhiirigelinaysay inaan safaradeena u wajahno si kalsooni iyo farxad leh. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.